banaanbixii ugu ballaarnaa ayaa halkan ka socda kadib markii dadweynaha ku dhaqan waqooyiga caasimadda Saaka ay iskugu soo baxeen wadadan isla markaana waxa ay sheegeen in marnaba aysan aqbali doonin in degmooyinkooda wax qalalaasa laga sameeyo waxa ay fariin adag u direen xubnaha mucaaradka dawladda ee fariisanka ka sameystay waqooyiga caasimadda iyagoo sheegay in dadkaasi mucaaradka ay halkan ka guuraan maadaama dadweynaha waqooyiga caasimadda aysan marnaba aqbali doonin in degmooyinkooda colaad laga horiyo shacabka waqooyiga caasimadda degmooyinka ka kala yimid ayaa waxay fariin adag u dirayaan xubnaha mucaaradka dawladda iyagoo sheegay in marnaba markaasi ay suurtagali doonin in colaad halkan laga abuuro sidoo kale dadweynahan ayaa ku dhawaaqaya hadallo ka dhan ah xubnaha mucaaradka dawladda iyagoo sheegay in dawladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay si buuxda u taageerayaan isla markaana ay soo dhaweynayaan doorashada dadweynaha maalintii labaad halkan waxa ka soconaya banaanbax weyn oo markaasi xubnaha mucaaradka dawladda loogu soo horjeedo iyagoo sheegay dadweynahan in ay markaasi marnaba aysan aqbali doonin in colaad laga abuuro waqooyiga caasimadda shacabkan ayaa waxa ay sheegeen in ay markaasi soo dhaweynayaan doorashada dadweynaha isla markaana marnaba aysan aqbali doonin in degmooyinkooda laga abuuro wax colaad ah farxaan maxamed xuseen warbaahinta gobolka muqdisho